munaasabadan oo ahayd mid si heersara loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen arday aad u tiro badani waalidiin maamulka dugsiga hoose dhexe ee Hormuud mas'uuliyiin ka socotay jaamacadaha kala duwan ee magaalada Laascaanood ayaa ujeedkeedu ahaa xaflad loo qabanayay sanad dugsiyeedka 2019 ilaa 2020 ugu horeyntiina waxaa soo bandhigay aqoontii ay ka barteen dugsiga hoose dhexe ee Hormuud ardaydii dhiganaysay muddada 2 sano ah ee uu furnaa dugsigaasi سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا شباب دللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا هم وردوا الحياض مباركات فسالت عندهم ماء معينا هم وردوا الحياض مباركات فسالت عندهم ماء معينا إذا وردوا الوغى كانوا كماتا يذكون المعاقل والحصون إذا وردوا الوغى كانوا كماتا يذكون المعاقل والحصون I am fine and you. I am fine too. Are you student? Yes, I am student. Which school do you stand? Which school do you stand? I stand Hormuud Primary School. Which grade are you? I am grade 3. ومع من تقدم أقطن مع أسرتي. كم تتكون أسرتك؟ تتكون أسرتي من 5 أشخاص. الطالب أنت؟ نعم أنا طالب. أين تدرس؟ أدرس في مدرسة hormuud الابتدائية والإعدادية. I am very glad to stand in front of my parents, my teachers and my schoolmates. I am very happy to participate in the open ceremony of academic year 2019 and 2020. If I tell you full information about our school, it is what established before 1 year. The curriculum is written by English. ورحمة الله وبركاته بعد التحية. في هذه المناسبة الفذة لا يفوتني أن أستعرض قوتي وقدرتي في مجال اللغة العربية. أنا مسرور جدا بالوقوف أمام والدي ومدرستي والزملاء في درب التعليم الأساسي، وأنا سعيد للمساهمة في حفل افتتاح العام الدراسي 219 إلى 220. أيها الطلبة، نحن في يوم تضاضرني الأفراح ويداعبني السرور، ولا يسعدني في مثل هذا اليوم إلا أن أهدي إلى جميع wixii intaasi ka dambeeyay waxa hadalka iska daba qaatay maamulka sare ee dugsiga hoose dhexe ee Hormuud mas'uuliyiin ka socotay jaamacadaha kala duwan ee magaalada Laascaanood waalidiin iyo marti sharaf kale waxayna ku dheeraadeen muhiimadda uu dugsigan u leeyahay bulshada gobolka Sool. waxaan sidaad ogtiin iskoolka Hormuud College ama qaybihiisa kala duwan uu caan ku yahay kuna baxaa sidaad weydeena ama galabta halkaad ka dheehanayseen arday yar oo haddii daadoo leego aad u yar yihiin laakiin haddii xagga maskaxoonta leego ama si wax loo baray iyo daadoo ismaal keen wixii galabta la soo midheeyay dadku Soomaaliya wax ku maamaadaa dadku wax shay kuma qancaan laakiin wax arag bay ku qancaan haddii aad maqay jirteen Hormuud College تعليم باطالا لغة لغو برتا هرمر بايالا وحيلا تقلبتا اندينا كو اركيسان وحالا صوم بردقى يا وحالا قلادلين ما waxaa laga codsanayaa bulshada halkan fadhida qaybaheeda kala duwan hooyooyinka aabayaasha macallimiinta ardayda xoggaradka qaybahooda kala duwan sida quruxda badan ee ay uga shaqeynayaan horumarka future-ka iyo mustaqbalka ayatiinka leh ardaydooda inay mar walba wax u baraan inay iskuul Hormuud Primary uu yahay iskuul aad iyo aad u tayaysan aad iyo aad 100% iskuulada ka jira hadda gobolka Sool
markii ay noqotay wax la isla eegay inay noqdeen iskuullada 100% aad iyo aad u horumarsan aad iyo aadna u tayeysan hadday noqoto xag macallimiin hadday noqoto xag wax la yiraahdo horumar hadday noqoto xag waxbarasho 100% waxaa la idin tayay iskuulka Hormuud Primary oo hadda ilaa 18 ilaa 19 furnaa dhammaan markaa hadda ujeedada hadda laga leeyahay waxay tahay inay ogaato bulshada gobolka Sool iyo intii hore u dhigan jirtay iyo inta hadda aan dhiganba iyo dhammaan ardayda Hormuud College kaleba inay ogaadaan iskuulka Hormuud Primary inuu yahay iskuul tayeysan waalidkii ku soo tabcay iyo macallimiintana dhaahno jazaakumullahu khayran ilaahay khayr idin siiyo jiilkani waa jiilka la doonayo inuu berri u aayo wadankan waana jiilka aynu u baahannahay inaan awoodda saarno si looga gudbo mashaakilkii ummadda hore u soo ragaadiyey intaa waxaan ku darsanayaa oo macallimiinta aan rabaa inaan u soo jeediyo jiilka hadda soo kacayay waa in lagala dagaalamaa xanuunada aabbayaashood iyo awowayaashood soo ragaadiyey ee qabyaaladda iyo nin jeclaysiga iyo eexda iyo waxa weeye dadku aan ku sinaan ay ka mid tahay waxa loo baahan yahay ardayda ma maqlasaan waxa loo baahan yahay dadka intiina halkaada fadhida isku fasalkaaba isugu xiga idinkaa walaalo ah idinkaa isku ehela idinkaa wax wadaaga oo buug iyo qalin oo wixii ugu qaalisanaa adduunka ah halkan waxaa loo fadhiyaa Hormuud Primary School oo runtii iskool aad u tayeysan oo runtii sida reer Laascaanood iyo bulshada inteeda badani ay tacliinta uga baratay waxaan sheegay college-ka waa runtii kana aan filayaa in si wacan looga baran doono aqoon tayeysan walaalayaal iskoolkan Primary School waa iskool hadda la furay oo dhammaantiinba haddeer adigu iskool cusub weeyaan waxaan filayaa sanadkii labaad ayuu shaqaynayaa intaa ka bacdi walaalayaal ardadan sharafta leh goobta ku sugan maxaan sheegay iskoolka dhigata aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa waxaan filayaa galabta natiijadoodii iyo imtixaankoodii mid walba waa aad loogu soo sibitiyayaa aad iyo aadna waan ugu hambaleynayaa qofkii haddaba si uu soo baxo oo ardayga yacni iskuulka dhiganayay uu noqdo arday waalidkuna uu ka gaadhay hadafku u keeno iskuulka annagana yacni waxaan barnay uu noqdo arday ka midha keena oo gaadha hoolkan meeshaan la doonanay yoolkan doonanay qof gaadha si uu noqdo yacni waxaan rabaa waalidka inay iyo macallimiintu ay iska kaashadaan ilmihii ayna ku toosiyaan yacni waddada fiican ee aqoonta iyo adaabta waalidka waxaan rabaa ilmaha yacni inuusan caqabad ku noqon ee uu isagii yacni waxbarashadii ku noqdo yacni shaagagii uu ilmaha yar ku soconaya uu noqdo waalidku iskuulka sidiisaba wuxuu tacliintiisa waxay tayo ku yeelataa waa macallin aqoon leh arday asluub leh iyo waalid aragti leh in la helo ardayga marka lagu soo dadaalo macallimiinta ay ku soo dadaalaan inay macallimiinta iyo waalidiintu ay iskaashadaan si loo soo saaro arday akhlaaq aqoon iyo asluub intaba ay ku dhammaystiran tahay marka aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay hore uga socda meeshaad maanta joogtaan saaxiibkay macallin Blackna waan ku faraxsanahay guusha isdaba joogga uu ka gaaray xagga tacliinta waan ugu hambalyeynaa ilaahayna ku garab galo bulshaduna ha kula shaqeyso adduunka waxa lagu tartamaya waa aqoon weeyaan marka iskuulkani sida ay muuqato wuxuu ka mid noqon doonaa ama ka mid yahay iskuulada gobolka ee ugu wanaagsan darteed maanta waxa weeye kudayaasha mudan tahay iskuulkan waa u baahannahay deegaanka u baahan dadka u baahan waxaa la rabaa hadduu 5 sano ama 3 sano sii jiro inuu noqon doono iskuulka ugu quality-ga faraha badan xagga tayada iyo aqoontana waxa sheegi doonaa waa waalidka iyo imtixaamada waxa weeye final exam-ka ee wasaaraddu qaadi doonto insha Allah wax leeyahay hambalyo halkaa ka soo wada assalaamu calaykum ugu dambeyntiina waxaa hadiyada guddoonsiye ardadii kaalmaha hore ka gashay sanad dugsiyeedkii tagay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Hormuud Professor Cabdixamiid Daahir Maxamed isagoona u soo jeediyay kelmado iskugu jira wacdi iyo waano diintood mustaqbalkooda iyo dalkooda hadii Allah idmo haddii aan ka bixiyo introduction ama xog ku saabsan iskuulkan wuxuu hadda asaasan yahay 2 sano wuxuuna awal u soo shaqayn jiray hab college ah in ka badan 15 sano intuu college-ka ahaana waxaa ka baacdada aad u fara badan iyo arday aad u fara badan kuwaasoo ka shaqeeya gebi ahaanba dalka iyo gobolkan isla markaana wuxuu caan ku ahaa luqadda Ingiriiska waxaanu ku soo kornay dugsiga hoose dhexe annagoo targetka iyagu yahay inaanu ubadka ku barbaarino
luuqadda ay markay jaamacadaha bilaabaan ama sekondaryaasha ay u tegayaan inay ku bartaan inta ay ku jiraan dugsiga hoose dhexe ayna ka baahi baxaan insha allah waana wadnaa waana ka baahi baxi doonaan insha allah waxaan idiin ballan qaadayaa anigoo ah adminka ama maamulaha iskuulka iyo inta aan collaborationka ku wada jirnaba inaanu labanlaabi doono dadaalkaanu bulshada u hayno kaasoo ah la dagaalanka jahliga kor u qaadista cilmiga iyo inaanu ubadka ka dhisno xagga akhlaaqiyaadka oo ah akhlaaqiyaadkuna waa midkan ugu muhiimsan indhihiinna ayaana makhraati aad ku tin iyo caqligiinna waxa goobtan ka socda waana dareemi karaysaan akhlaaqiyaadka iyo aqoonta meesha taalla waanad ku mahadsantihiin inaad ku soo booqataan xaruntiisa iskuulku sana dugsiyeedkan hadda xafladda loo qabanayaa waa 2019 ilaa 2020 insha allahu mar kastana change iyo step horla ayuu sii qaadi doonaa waxaan idiin rajaynayaa inaad ku xidhnaataan haddaad waalidiin tihiin iyo ubadba iskuulka iyo nidaamka systemkiisa la socon doontaan annana aanu doonayna inaanu kor u qaadno tacliinta ay ubadku baranayaan wuxuuna iskuulku ku baxayaa manhajka dalka ka shaqeeya isla markaana waa manhajka gaar ahaan dhanka luqadda ingiliishka oo dhammaan maadooyinka badankood waxay ku baxayaan luqadda ingiliishka waa sababta ay ciyaalku ama dhalintu ugu hadlayaan luqadda ingiliishka si fasaaxa ayna ugu fahmayaan maado kastoo loogu dhigo sida sayniska socialka iyo xisaabta ku seedeeraan maayo mudanayaal marweyn hadalkayga laakiin waxaanu idiin ballan qaadaynaa in iskuulku oo had iyo goordhabada cagta uu ku haya ay tahay la dagaalanka jahliga isaga oo eemkuna yahay in ummadda la gaadhsiiyo cilmi anfaca mustaqbalkooda insha allahu waana ku guulaysan doonaa dugsiga hoose dhexe ee hormuud ayaa horey ugu shaqayn jiray muddo 15 sano ah habka kuleejka isagoona soo saaray arday aad u tiro badan ayaa hadda waxaa lagu soo kordhiyay dugsi hoose dhexe kaasoo noqon doona dugsiyada ugu tayada fiican gobolka Sool walibaan Axmed Ciise Libaan Qaran Somali News TV la sacanood